habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay yihiin xiisadda Venezuela ayaa cirka isku sii shareertay iyadoo Mareykankuna mucaawino halkaasi geynayo ayaa xadka Brazil la xidhay warbixin dheeraad ayaan idinka haynaa xaaladda Venezuela wararka kalena waxa ka mid ah kumanaan qof ayaa ka qaxaya waqooyi bari ee Nigeria iyadoo doorashadii guud bari loo dareerayo dad lagu soo jirdilay dalka Suuriya ayaa maxkamad Jarmalka ka furtay ay ku eedeynayaan taliska Asad halkeebay la gaari doontaa caawiya tiknoolajiyadana isqaboojin ayaa loo sameeyay xayawaanka lagaga tago gawaadhida kulul kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa xidhay xuduudda dalkaas la wadaago Brazil kadib khilaaf ku saabsan kaalmada caalamiga ah waxaana uu militariga ku amray inay joojiyaan maraakiibta dhankaasi ka gudbaya dhanka kalena madaxweynaha iscaleema saaray Juan Guaido ayaa isna ku sii jeeda oo ku waajahan xaggaas iyo xadka Colombia waxaana uu rajaynayaa inuu gargaar ka soo qaado halkaasi Mr Guaido iyo kolonyo gaadiid ah oo uu wato ayaa ka dhaqaaqay magaalada Caracas ee caasimadda isku dhacay ayaa markiiba dhacay oo halkaasi ciidamada amniga ay ku hakiyeen gaadiidkaasi dadkan basaska saaran ayaa iyaga waxay u tahayba arrin taariikhi ah mid ka mid ah dumarka safarkan qaybta ka ah ayaanu weydiinay haddii ay ka baqayso isku dhacani ma ogi waxaan xuduudda ka filan karno waxaa suuragal ah inaan ilaa 4 maalmood soo noqon waxaase filayaa inaan nabad ku soo noqdo sidoo kale xuduudda Colombia iyo Venezuela ayaa waxa iyagu ka socda bandhigyo iska soo horjeeda bandhigyadaasi ayaa waxa yihiin waxa la arkayaa dad fara badan oo iyagu halkaasi gaaraya goobta gargaarka la Cacota ee xuduudda Colombia iyo Venezuela u dhaxaysa xulafada hadaba madaxweynaha Iscaleema Saaray Guaido ayaa waxay filayeen in raashin gargaar halkaasi ka soo qaadaan xuduudda waxaana uu tilmaamay in ilaa 300,000 oo qof ay u dhiman doonaan haddii aan gargaar la soo gaarsiin wariyaha caalamka ee BBC-da Ola Guerin ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Cacota ee xuduudda Colombia waa nolol cusub oo uga bilaabanaysa dhul shisheeye Alice waxay hadda ku curatay canugeedii ugu horeeyay Carlos wuxuu ku dhashay Colombia sababtoo ah waxay ka baqaysay inay ku umusho Venezuela waxaa laga yaabay in cunugeygu uusan badbaadinayay tiri waa meel leber ah madaxweynahana been ayuu sheegayaa marka uu leeyahay caawimaad looma baahnaa dhakhtarka caruurta Alberta Cova ayaa itusayay isbitaalka oo uu ku daweeyay dadka ka yimid Venezuela wuxuu isaga xitaa ka soo jeedaa Venezuela wuuna dhibsanayaa xaaladda madaxweyne Maduro ayuuna su'aalo u hayaa muxuu kaluu doonayaa waxba ma hayo wax awood ahna ma lahan hadda wuxuu ku guulaystay inuu dalkayga burburiyo Arnaldo wuxuu jiraa 5 bilood aad ayuuna u xanuunsan yahay macluul daran ayaa haysa waxaana ku dhacay oofareen hooyadiis Claudia waxay sheegtay inay daaweyn ay codsatay markii ay Venezuela joogtay laakiin dadka kaliya ee caawimaadda helayay waxay ahaayeen taageerayaasha dawladda waxaa jira kaalmo dawo oo Mareykanka uu bixinayay waxaana lagu hayaa magaalada Cacota ee xuduudda shaki kuma jira in Venezuela ay u baahan tahay gargaar degdeg ah waxaana wadanka jooga dad badan oo aan doonayn in gargaar uu gudaha dalka soo galo laakiin howlgalka bani'aadanimo ayaa sidoo kale ah mid siyaasadaysan oo lagaga soo horjeedo dawladda madaxweyne Maduro haddii gargaarka uu soo galo gudaha waxay guul u noqonaysaa kooxaha mucaaradka ah taasina waa arinta uu madaxweyne Maduro doonayo inuu iska ilaaliyo mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynaha wuxuu ka walaacsan yahay joojinta dadka halka uu ka fikiri lahaa xalinta dhibaatada Venezuela ciidamadiisuna waxay bartilmaameedsanayeen gawaarida ku wajahan Colombia isagoo ku hanjabay inuu xiri doono xadkaasi qad dagaal ayaa sameysmay oo ku aadan gargaarka iyo mustaqbalka Venezuela madaxweynaha Nigeria ayaa dadkiisa ugu baaqay inay u soo baxaan doorashada madaxweynaha
iyo baarlamaanka ee baaqatay oo sabtida soo socota dhacaysa iyadoo dad ku dhow 2 milyan oo qof ay ku qaxeen waqooyi bari ee dalkaasi. Ammaanku wuxuu ka mid yahay mowduucyada ololaha lagu ololeynayo. Waxa inoo haya Cabdixaafid Caawil Ismaaciil. daal ayaa ka muuqda dadkan hadda ayay ka soo dhaceen waa ammaan imika kadib argagax guryahoodii ka soo saaray laakiin xeradan 8,000 oo qof ayaa loo dhisay 4 jeer dad ka badan ayaana ku jira xadiise ibraahim oo 5 carruur dhashay ninkeedii waa la la'yahay inuu jaar u qaxay ayaa la filayaa dhibaato aan la qiyaasi karin ayaannu soo marnay ayay tidhi hooyadan oo 6 carruur haysataa mataana ayay dhashay iyadoo qaxaysa maxaa halkan ku keenay qoyskaaga maxaa ku dhacay dhowra ayaan uga soo qaxnay boko xaraam ayaan ka soo tagnay 2 maalmood ayaan ku jiray keynta markaa ayaan umulay mataano maanan haysan dharaan carruurta huwiyo xataa aniga laftirkayga dadkani waxa ay sheegeen inaanay haysan waxyaabihii aasaaska ahaa xero cusub oo adeegyo badan leh ayaa la dhisay si ay dadku u kala nafisaan waxaa laga dhisay garoon kubadeed oo dumay isagu xataa calaamad ayuu u yahay dayacadda siyaasiyiinta Nigeria xilliga doorashadu cadaadis ayuu ku keenay dadkan dalkoodii ku dhex qaxay iyaga oo Boko Haram iyo kooxda la baxday dawladda Islaamku ay kordhiyeen weerarada kuwani waa dad ka barooranaya aad ka socda 10 kiiloomitir meel u jirta Maiduguri waa 14 qof oo la dilay iyaga oo xaabo soo guraya waxyaabaha aasaaska u ah nolosha oo aanu haysan ayaa naga qaxiyey deegaankayaga suuqa ayuu noo geli jiray si uu quutulyoonka noogu helo xataa markaas waxbarashadii ma uu joojin kadibna dugsiga ayuu aadi jiray ka hor inta aan shilkan xumi dhicin dawladdu waxa ay sheegtay in dagaalka lagu guulaystay laakiin maleeshiyaadku waxa ay awoodeen inay toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay jidka u galaan baabuur kolonyo ah oo siday barasaabka Maiduguri ninkan oo dhawaan ka badbaaday masaajid la qarxiyay ayaan la kulmay waxa uu farta ku fiiqayaa godka xabadii dishay daraskiisa waxaanu la yaabnay ee naga fajicisay waxa ay tahay halkan sidii ay ku yimaadeen ma magaaladay ka yimaadeen mise ayday ka yimaadeen tan naga fajicisay waxa ay tahay halkay ka yimaadeen goobtaa may weerarin waxay go'aansadeen annaga inayna soo weeraraan 2 toddobaad ka hor dadkan qaxay ayaa ka dibad baxay xaaladda ay ku sugan yihiin sunta dadka kaga ilmaysiisa ayaa lagu riday laakiin cadadoodii waxa ay sababtay iscasilaadaan la filayn cid kasta oo ku guulaysata doorashadan wax badan laga fili maayo inay wax ka bedelaan nolosha dadkan bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta guddiga dawladda Botswana ka tirsan ayaa ku baaqay in la qaado xayiraadda saareed ganacsiga maroodiga iyo gaadhsigiisa waxa kale oo rabaan in hilibkiisa xoolaha kale la siiyo Botswana ayaa maroodiga Afrika 30% ay ku nool yihiin hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa shisheeyaha ugu baaqday inay Soomaal gashadaan gobolka Rakhine ee dalkaasi waa gobolka ay boqolaalka kun ee muslimiinta Rohingya sida qasabka uga qaxeen waxayna sheegtay in caalamku dhanka xun uu gobolkaasi ka arkay guddi baadhisada qaramada midoobay ka socday ayaa sheegaya in ciidanka dalkaasi ay dhici karto inay gumaad u geysteen dadka Rohingyada 8 sano kadib markii uu bilowday dagaalka Suuriya waxa hadda diiradda la saaraya dambiyada bani'aadamnimo ee ka dhanka ah aan raahday ay la sheegay inay galeen taliska Bashar al-Assad sharci yaqaano iyo qaxoonti Suuriyiina oo Jarmalka degan ayaa sheegaya in talisku jirdil u geystay dadka rayidka ah Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waa ay ku dhici waayeen in ay ka hor yimaadaan xukuumadda Assad waxa loogu jawaabayaa axmaqnimo waxay nagu ciqaabeen aalado gaar ah mararka qaarkood aalado elektroonik ah iyaga cayaar ayay ka ahay 5 qof ayaa ciqaabayay 8 saacadood gacmahayga ayay dhinaca dambe ku xireen midabka jirkayga lama garanay iga soo laalaadeen blue iyo madow ayuu isu bedelay aad ayay u xumay 24 saacadood waxaad maqlaysaa dadka la ciqaabayo qayladooda dadka badbaaday waxa ay sheegeen xarig iyaga oo aan la xukumin iyo in ay dadkoodu ciqaabeen bani aadam maaha waa xayawaan and when he put the gun in my mouth
midabka jirkayga lama garanayn waayo casaan buluu iyo madow ayuu isu beddelay aad ayay u xumayd jirkoodii wuu baaba'ay waa la googooyey qaar indhaha ayaa laga tuuray hadalladoodu waa markhaati la qaadan karo waa la caddeeyey qareenno ayaa sheegay muuqaalo argagax ah oo aan warbaahinta laga sii dayn karin badankoodii waxay u dhexeeyeen 14, 15 ilaa 45 jir. badankoodu marag dhallinyaro ayay ahaayeen haa qof wax fashiliyey ayaa inoo sheegay waraaqo ay ku yaalaan 10 kun oo qof oo lagu dilay xabsiyada Suuriya wax kasta waa caddaan tirada ayaynu haynaa magacyada cidda amarka bixisay cidda sheegtay cidda qoraalka saxeexday xitaa Suuriyiinta joogta Yurub dacwadooda ayay hagaajinayeen sharciga Jarmalka dadka dacwadda lagu soo oogo ee aan dalka joogin maxkamad ayaa lagu saari karaa dalkaasi dad ayaa la xiray waxaan u baahannahay maxkamaddii Nuremberg oo kale wax la'aan ayay dhaantaa taasina waa fariin adag haddii aan xaaladdan siyaasadeed noo saamixin in maxkamad la saaro wax baad samayn kartaa jab ayaa la soo baday way baqayaan laakiin waxay u dagaalamayaan in ay Asad cadaaladda kaga helaan iyaga oo Yurub jooga mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC-da Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter-ka iyo Instagram-ka wali waxa caawa inoo soo socda waxaanu eegi doonaa sababta keeni karta inay Burundi sharci ku xidho in ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya falanqayn ayaan ku eegi doonaa iyo waraysi ku saabsan xaaladda ciidanka Burundi ee dalka Soomaaliya weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka ballan xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweynaa xiisadda Venezuela ayaa cirka isku shareertay iyadoo Mareykankuna uu mucaawino halkaasi geynaya ayaa xadka Brazil la xidhay kumanaan qof ayaa ka qaxaya waqooyi bari ee Nigeria iyadoo doorashadii guudna ay berrito la dhacayso dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay inay kala baxayso Soomaaliya dhammaan 5,000 ee nabad ilaalinta halkaas u jooga haddii midowga Afrika ku adkaystay bay yiraahdeen inay 1,000 ka mid ah ciidankaasi dalka ka saaraan dhamaadka bishan heshiiska qaramada midoobay ayaa in tiro ka badan mar walba 20,000 ee halkaasi joogta in tartiib loo saaro si loogu wareejiyo hawlaha amniga ciidamada Soomaaliya haddaba go'aanka Burundi muxuu uga dhigan yahay xaaladda waxaanu isleeyahay Cabdisalaan Guuleed oo ka faalooda arrimaha ammaanka Cabdisalaan ku soo dhawow stuudiyaha BBC Cabdisalaan waxaanu maqlaynaa hanjabaadda ka soo baxaysa dawladda Burundi iyo baarlamaankeediba marka hanjabaadda maxaan ku macneyn karaynaa dhowr waxaan kala qaadaynaa hanjabaadda Ibrahim midda koobaad waxa weeyaan Burundi dhul weyn oo baaxad weyn gobolka Shabeellada Dhexe ayay mas'uul ka tahay arrimaha Soomaaliya markii la fishay nabad sugidda Afrika talabaadna waxa la xiriir dhaqaale badan baa la xiriira oo dhaqaale badan baa ka soo gala wadan kasta oo ciidamada Soomaaliya keenay dawladda Burundi waxa ay tiri 350 hal la qaado oo kunkan laga qaado 340 maartay ciidamada Burundi kunka inta kalena laga soo dhameystiro wadamada kale sababta ay hadalka u tirina waxay tahay ay u xeerisay inay jiraan qatar ka imaanaysa hadii ciidamada intaas la eg laga qaado dhul baaxadiisu aad u weyn tahay gobol dhana qatarta u imaan karta ciidamadooda meesha looga tagay ayay u cuskatay laakiin sababa kalena way jiraan
dee loolan waxaa jira amisoomta dhexdeeda ama ciidamada AU-da xamar jooga Soomaaliya jooga loolan ka dhexeeyaa jira oo ah yani yaa u haraya joogaya waa askariga u dambeeya joogay Burundi hadda la socotay wadan dhaqaalihiisu oo aad u liito dagaalo sokeeye ay ka jireen marka Cabdisalaam waxaad leedahay haddaan ka dhex galo arrinku waxa isku soo ururaysaa wadamadan baaba iyaga dhexdooda loolan ku jira amisom ka tirsan iyo dhaqaalihii amisomta aad iyo aad waxaa ka jira challenge iyo isriix aad u badan Burundina markasta waxay dareemaysay inaan islooga cadaalad falin meesha dhexdeeda oo Ugandesku ay la wareegeen awoodda ugu badan oo ayagu noqdaan qolada go'aamisa cidda baxaysay cadadka lagu baxay maxaad war inooga haysaa iyada xaggan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa kii tagay Burundi madaxweynaha Burundina la kulmay siyaasadahan socdo wax ma iska bedeleen marka iyo Burundi caradan ay qabto madaxweynaha Soomaaliya tagidiisu waxaan maleynayaa waxay ahayd waxaan la sii shaacin xog badanna kama soo bixin tagidiisa meesha laakiin maadaama ay jirtay isriixriixan dawladda Burundi bishii Febraayo ee maaragtay sanadka hore ayay sheegtay oo ciidankan la ogaa inay baxayaan haddana waxay soo cusleyskana soo kordhay waxaa muuqatay inay sabab qayb ka noqon karto tigidda madaxweynaha sidii arrintan wax looga bedeli lahaa wax loogu dari lahaa laakiin already ama sida hadda Washington Post oo kale ay qortay 200 oo kamid ah ciidamada kunkaan oo Burundiyan oo Bujumbura waa aadeen waa baxeen kuwa kalena waxa lagu tala jiraa inay baxeen sida uu sheegay sargaal kamid ah ciidamada Burundi oo magaciisa qariyay laakiin kunkaas in laga dhameystirayo sidii qorshuhu ay Burundi iyo in sida Burundi ku dooday laga soo qaadi doono wadamada kale wali ma cadda su'aasha ugu dambaysan rabeyna ku weydiiyo waxa weeyaan Cabdisalaano su'aasha kale muhiimka rabeyna ku weydiiyo waxa weeyaan Soomaaliya waxay sameysay halkudhigyo waaweyn ballamo waaweyn haddana markii la yidhi 1000 askari oo Burundi la saaraya waad arkaysaa dhaqdhaqaaq badan baa jira halkeebay ku dambeeyeen ballanqaadyadii iyo halkudhigyada in ciidan Soomaaliyeed uu bedelayo ciidankan waxaad u malaysaa inay qayb ka noqon karto hataa walaaca Burundi ciidamadeeda ay u qabtay uga tagayso Soomaaliya inay Soomaaliya aysan soo buuxin meeshii laga rabay inay ciidamo ku soo buuxiso gobolka Shabeellada Dhexe oo kale hadii Soomaaliya maanta cutubyo iyo bataliyaan cusub ay geeylahayd waxaan u maleynayaa legitimate ama sharci ma noqoteen Burundi inay ku doodo war ciidankeeni laga tagayo cadow baa boobay madaxweynaha Hirshabeelle dad ogeeday ayaan hore waa kii markii ay soo baxda arrintan uu yiri qatar baan dareemaynaa waxaan ka cabsanay inay jawhar la wareegaan al-shabaab marka waxaan maleynayaa dawladda Soomaaliya inaysan ka soo bixin ballanqaadyadii laga suulayay adoo maleysaa inay aad dib uga dhacday waqtiyadii laga rabay inay buuxiso waan gartay in saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa Soomaaliya hadii ay baxaan bay imka ciidankani oo sida la sheegay dhacdo haddaan sida Soomaaliya laga rabay 20 oo askari markay baxaan waa inaad 20 waliba qalab fiican haysto ma ogi Soomaaliya in qalabka loo kordhi doono laakiin hadii qalabka Soomaaliya ciidamadu ay haystaan hadda hadii rabto inay ku dagaalanto waa inay ciidamadu laba u jibaarto oo waliba 40 oo gaarsiiso 30 gaarsiiso ma muuqato Soomaaliya inay hadda buuxiso booska marka waxa muuqata in shabaab ay dhul badan soo qabsan doonaan dawladda Soomaaliya iyo dhulka ay ka talisan ay aad u soo aruur doonto gobolka Banaadir ugu dambeyntii maxaa la filayaa in xal diblomaasiyadeed laga gaaro ma la filayaa Afrika dhexdeeda ama Amisom dhexdeeda aad suurtagal u tahay yani wadamada dad fiirsa Burundi aad ay muhiim ugu tahay Soomaaliya ciidankan markaad fiirso Uganda baa ka ciidan badan inkastoo Burundina ma aha Soomaaliya wada xuduud la oo Kenya iyo Ethiopia xuduudaha ay ilaashadaan waan gartay Cabdisalaam waqtigan ugu soo koomay aad baad ugu mahadsan tahay maatinkaga aad iyo waa tahay Cabdisalaam u mahadsan yahay wararka ciyaaraha hadii aynu u gudubno caawa Chelsea waxa laga mamnuucay inay ciyaartoy cusub iibsato labada waqti ee soo socda ee iibku furmi doono Chelsea waxa lagu haystaa ku xadgudub iibka ciyaartooyga ee da'doodu ka yartahay 18 jirka FIFA ayaa ganaax saartay naadiga iyo gudida ciyaaraha ee England Chelsea si buuxda ayay u sheegeen in aanay jabin shuruucda FIFA ciyaaraha kale Premiership-ka ee caawa jira hadaynu eegno Fulham waxa ay tagaysaa West Ham oo ciyaartooyga Manuel Lanzini laga yaabo inuu markii ugu horeysay ciyaaro West Ham tan iyo markii uu dhaawacmay bishii hore ee June dhinaca kalena Cardiff waxay marti u tahay Watford berrina Tottenham oo kaalinta saddexaad kaga jirta Premiership-ka ayaa waxay wada ciyaari doonaan Burnley waxaan hore ugu soconayaa horyaalka Ingiriiska ee Manchester City waxay hadda la ciyaaraysaa Chelsea finalka koobka EFL waa koobka EFL kaasi oo loo yaqaan koobka Carabao City oo nin laga saaray waxa ay ka badiyeen koobka horyaalada Yurub kooxda Schalke ee dalkaasi Jarmalka waxayna habeenimada Arbacada gaadheen 16 isku soo haray horyaalka Yurub Chelsea waxay iyaguna ka adkaatay kooxda Malmo oo ay 3-0 kaga badiyeen Khamiistii imikana xagga suugaanta ayaynu u yara leexanaynaa caawa waxaan idin hayaa gabay la yiraahdo Diano waxa uu muuqaal ka bixinayaa hablaha iyagu dawooyinka isticmaala ee waxyaalaha badan isticmaala
amaba dadka qaarba dee rag iyo dumarba la odhan karo hadduu qofka jidhkiisa u isticmaalo waxyaabo dawaa oo kiimiko la isku darayo taasina waxay keentaa in halkaasi dadka maqaarkiisa uu xanuun badan kasoo gaadho in badanna waa laga hadlayay dadka suugaanta Soomaaliyeed way ka hadlayeen laakiinse gabayaagan ee Maxamuud Cabdalle ayaa isagu soo jeedinaya gabayga ku saabsan Diyaano madow suwala maarin subkoon midabkii Soomaali macbuudkay habluhu muuqsan iyo muuno ugu deeqay maxaa sumo la soo milay mariid mariyay jidhkooda diyaanada iyo maadooyinka diirka marinaya maqaarkay gubaano wajigay mirir u yeelaane ursiloono lala meermo iyo dhagor masaabiira jidhkoodii mulaxda oo ka lagu masiibay cadceeday ka maagaan gadiisa mar soo baxay manfacada halkii lagu karsho iyo dhariga meeshiisa waa ka maadan meel kulul madbaqa waa ka cararaane dabka moolka lagu shidiyo huur waa mushkiladooda mudanihii qabiyo ubadkii bay gaaji miratay macalulo qoyskii korhool miil ka sugayaaye kuwaan weli lamaan xadin haween maaligu hagaajay ayaan miidda uga diga hablaha lagu mahluukayne midhka waana iga hooya waad marin haboodeen dheh idinkaaba meesiga marlay dumar u muuqdheer dheh adduunyada ma joogaan haween idin mataal eeg dheh madaxtooyadii baad tihiin qurux mihiibkeedde xuralcayn magoolo ifkeer mawla ku abuuray nimco lagu manaystaa tihiin loo mililucee muraayadaha iska daawada oo dheehda midabkiinna caawana waa caawadii tiknoolajiyada iyo jimcihii waxaanu caawa idin haynaa warar ku saabsan sharikadaha waaweyn sharikada Google ayaa qaratay inay khalad samaysay sharikada kale iyaduna Samsung waxa ay shaaca ka qaaday telefoon mobile oo cusub oo isku laablaamaya iyo qodobo kale oo caawa ayaan idinku haynaa qaybteena tiknoolajiyada waxa isku soo dubariday oo inoo soo jeedinaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad waa kan Google ayaa qiratay khalad inay samaysay markay sheegi waayeen habka guryaha lagu ilaaliyo oo microphone ku jiray waxay soo baxday oo kaliya markii hab cusub oo lagu magacaabo Nextcard oo codku dhaqaajiyo ay soo saareen Samsung waxa ay shaaca ka qaadeen inay samaynayaan telefoon casri ah oo laalaabma waxa la yiraahdaa Galaxy Fold waxaana la iib gelin doonaa 2 bilood oo kaliya shirkaddu waxay ku dhawaaqday inay samaynayso telefoonno jaban markii ay qirteen telefoonkooda S9 lacagtay ka heli lahaayeen hoos u dhacday dareewalada Australia ayaa dhawaan waxay heli doonaan liisanada taariikhda marka loo sameeyo gaadiidkooda inay tii hore dhaanto sawirra la keeni doonaa waxaana lagu dhawaaqi doonaa toddobaadka bilaabaya March 1 dadku ilaa 5 sawir oo emoji inay ku dhajin karaan taariikhdooda ugu dambaystiina dhammaanteen waynu ognahay inaan eyda lagaga tegin gaadhi meel kulul yaalla shirkadda gawaadhida ee Tesla ayaa waxa ay soo saarayaan hab cusub oo eyda lagu badbaadiyo waxay samaynayaan hab gaadhigu aanu aad ku dhulaan muraayadda horena waxa la dhigayaa qalab dadka ag maraya gaadhigu ay arkaan in qofkii gaadhiga waday uu soo noqonayo waxaan caawana idinkaga tegayaa halkan ma mari lahayd oo mise waad cabsan lahayd sida dad badan waa xadhig adag oo isaga gudbaya dawgaasi wuxuu ku yaalaa meel u dhow caasimadda Jabaanka ee Tokyo halkaas ayaad ka arkaysaan webiga hoosta maraya kulli dad badan ayaa iyagu qalbi jilicsan ma malaynayo xadhigaasi aan dul lugeyn kareenin dad badan oo dhalinyaro ayaa iyagu dalxiis taga oo magaalada Tokyo ka taga oo halkaasi mara oo jecel inay halkaasi waqti ku qaataan sidaad arkaysaan muuqaaladuna waa meel cabsiya mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka waaweyn si aad u hesho wararka ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram intaasi ayaan caawa ku soo gabagabeynaa barnaamijkayga caawiya caalamka waa mahadsantihiin intaynu kulmayno isniinta hadduu eebaydmo waxaanu dhammaanteedu leenahay sidaa iyo nabadgelyo